السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سود دواد وأنا قصوا لابتين مرة عادية مرتاحة نعيم عادية فيلم مفاندين سبسكرايب تيسار لايك كومنت شير مفاندين أصحابي شرفت له ما أنتو حيدي شيء رواح قصة لي لسه وذاقي والولالكي وان أخري أنا وافهمي لكن هذا وحكا قلدنا يرها لأها ولكن أمرينا وحكا قلدتونا بكوش وغجر نكون قضي marka magacina sheegna muhiim ma aha magacana waxba muu u fadhina waxaa jiray gabar jirtay waalidkeeda way noolaayeen wiilna maxaa la dhihi jiray waalidkiisa ma nooleen mideeda kala shaqo ma haysanin danyar u ahay maxaa la dhihi jiray ninka wiilka wuxuu la jiray marka inan habartiis ilma habarar yihiin ma fahanteen ilma habarar uu la jiray gurigeeda uu joogay marka gabadhii iyo asay gabadhii waalidkeeda joogeen iyo asay way isjeclaayeen gabadha aabaheed wasiir u ahay marka gabadha hooyadeed waxay jeceshahay lacagta way ogtahay gabadheeda inay ninkan la socoto ma fahanteen ninkan iyo gabadheeda inay isjukaansadaan ay israbaan way ogtahay gabadhan iyo wiilkan way isjukaansadeen way heshiiyeen laakiin qarash ma haystaan qarashka aroos lagu galay lama haysto laakiin waa isjeceliyaa ma fahanteen marka iyadoo tahay marka maxaa la dhihi jiray saas u heed wiil qurbaha ka imaaday Belgiumka oo maxaa la dhihi jiray hooyadeed saaxiibteed ay dhashay gabadha lagu daray gabadha markii lagu daray iyadoo diidan wiilku wuu maqlay maxaa la dhihi jiray saaxiibkeeda ay sukaansanay oo danyarka ahay oo waalid la'aan tahay wiilka markuu maqlay wuu niyajabay wuxuu dhahay waalidkayga maanta ay noolaan lahaayeen gabadhaas waa la dhisi lahay qarashan ku guursadana waa la siin lahay ma garateen marka wiilku iska jooga maalin maalmaha kamid ah gabadhii habartiis dhashay uu la joogay ninkeeda aagay maxaa la dhihi jiray dukaan dharka lagu gado uu asaga leeyahay uu dhahay iga shaqeey dukaanka geeyay markuu dukaanka geey maxaa la dhihi jiray uu shaqaystay gabadhii wiilkii loo guuriyay oo Belgiumka ka imaaday wuxuu ahay wiil xashiish ka caba adi balwad cuno ma fahantay reelo balwad u ahay ma fahantay marka balwad soo cunay gabadhii wiilkii isfahmi waayeen maxaa la dhihi jiray wuu dilaa rafaad dunida qafaad jeclaan oo ku dhibaatayna waa fahmi kartaa ma fahantay marka maxaa la dhihi jiray gabadhii maxaa la dhihi jiray gabadhii wiilka hooyada ay u maad waxay leedahay hooyo please waa ku baryaa cunug yar ila joogo ma rabo inuu iga soo gala marka hooyo please waa ku baryaa maxaa la dhihi jiray ninkan iga furo ninkiyaa laga furay ninka markii laga furay maxaa la dhihi jiray wiilkii wuu maqlay in gabadhi hadal la soo furay in la guursado wuu maqlay hadal in la soo furo maqlay markuu maqlay wuu farxay way israadiyeen way isheleen gabadhi maxaa la dhihi jiray wiilka hadal way heshiiyeen wiilkii markii iidahayd wuxuu ka shaqeynaa dukaan uu ka shaqeynaa uu lacag yar ka qaataa wiilna cidoodii uu joogaa gabadhi walaashiis ma fahanteen marka say saas u ahayd maxaa la dhihi jiray say saas u ahayd wiilkii aabahe gabadhi iyo wiilkii way isfahmeen haddana ayadoo lasoo furay marka gabadhi aabaheed wasiir u ahay waa nin sheegan fila gabadhi aabaheed nin saaxiibkiis ah wasiir la ah wiilkeeda saaxiibtinimada yacni xidida u bedelan yacni xidid yacni hadda wiilkeeda gabadha isguursan xidida la noqonaa sax ana xidid la aqaana idan saaribtin u aqaana marka gabadhii maxaa la dhihi jiray markii loo guuriyay wiilka hadal loo guuriyay wiilka labaad loo guuriyay wiil wuxuu ahay asagana naaga badan gabadha ma danaysto gabadhii oo joogto naaga ku dul shukaansadaa awal baalikaasi maxay ii sheegaysaa camal ma fahanteen marka bas maxaa la dhihi jiray gabadhii iyadoo maxaa la dhihi jiray iska haysa ninkaada gashay laakiin ninkiyaaba ka soo booday qof ka soo booday ma la joogi kartid my friend marka wiilkana wuxuu dhahay gabadhan calafkaada ilaahay maba ka dhigin adduunkaada kale iska mar walaalo duurkaada mar wiilkii wuu maxaa la dhihi jiray wuu iska sii shaqaystay dukaankii ninku lahay mid ka sii weyn shirkad uu yeeshay ma fahanteen shirkad markuu yeeshay naagu guursaday nolol farxad leh gabadhii marka in ninkii markay isfahmi waayeen naagu ku kor shukaansanaa uu soo furay handala markuu soo furay wiilka inay raadiso isku dayday wiilka gabadh saaxiibteed ay u sheegay wuxuu dhahay baay waa guursaday saas waaye nolol farxad laan ku jira alxamdulillah shukran naag fiican oo guursaday ma fahanteen marka gabadhii way imaaday iyadoo markii loo sheegay way niyajabtay waa run way niyajabay because maalmaha kamid way isheleen telefoonka way kala qaateen way isla sheekaysteen way iswareysteen
هاي جورك لبعضنا ويقصوا هلا ولا لو سس عود عادي أستغنوا وحدة باي أساس ميها أنا محلي جرنا جورسدي في عن مستقبل في عن له هرمر هري صعد لعمل يعني إيه وناكسن جورسدي أنا أديك أنا على فكين نسكو مجرن وارد كذا نسوك هندي عمل فهمتين مركا جبدي يعني لا معلومة كدب ناقو إسكي حشود بدنت إذا كوات تقانين معلومة كدب محلي جرويلك أي سوا عاد حدا ولا وحرة إن نكون نقضى من يرى أما بحير سأتقانين هذا ناق طلبات ما فهمتين بحير لله أنا من بحير له وأقنا من يرى ندتك وأقنا أنا نفتنكي وأقنا مركا من يرى إن نكون نقضى الربا بس وصوب وحدا أبايا أنا هذا من يرى إن أي نقطة مربي مدة هذا كله محلي جري يرى هذا الباب على صفر هاي مركا محلي جري من يرى إن أي نقطة مربي because أنا مركا نكوبة هنا يوم دنير هاي والد كذا يكادي دمان دنير مي الحمد لله شكرا شركة وياشنا شركة ياشنا يقص أرد معها مركا رالي هذا عنو جرا يدب هاي محلي جري gabadhi horta wiilku ku gacan seeri markuu ku gacan seeri waalidkeed waxa meel jiray way maqleen wiilkii masaakiinka ay rajigay aqoonka ahay inuu shirkad yeeshay inuu taajir noqdo inuu lacag yeeshay inay maxal dhigi jiray alxamdulillah alshukru la u kala kacay way maqleen markay maqleen gabadhoodina mustaqbalana ku dhacday guura ka soo burburay mid labaada ka burburay wallahi horta waa nolol adag marka waalidka qaar oo dadka lacagta ku raacay ma fiicna ma fahanteen ana waxaan dhiilahay qof nin socdo gabadhaada jecel oo isticel yihiin ilaa yoomay maanta isla qadaan birna maxal dhigi jiray isla quutaan yacni lacag laan darteed qofa ugu diidan cunugaada ma garatay marka gabadhi mustaqbalaan waxa ku riday waalidkeed ma fahanteen mustaqbalaan gabadhooda waxa ku riday waalidkeeda ku riday marka gabadhi mustaqbalaan guriga iska soo fariisatay haddi ama kan inay buraarugaan leeyihiin ninkii diyaar u nahnay ma lagu dhisaa nin waxa lagu dhisaa waxa la jiray marka miskiinka hayba maribnay asoo miskiin gabadha markuu guursado uu bulaali kara horta nin walba risqiisu wata ma fahanteen Soomaali risqa fuutaa iyo waxa iska mar cadcsan I don't know why marka waxa qurux badan mar walba xilli walba yaani qafka bini aadanka ah يعني جاب حمو أما جاب يرى أما العقلان هكون نعين because قفكانيته لعق يعني لعق أنا تايم أسألك لكن هذا واحد سنين قفكان وقلبي في عيني هاي تاسع كان مهم because بقول لعق تاسع هي ستة وحبنا ضد تري ناجرته بقول لعق هي ستة ومحلي جري نولش هيس حتى نولش شو حتى كبعين لعقوا هستا حشيش وعاب قمري وعاب أنت وعاب محفايدة فايدة محيطة بروح ولا عمره قمر عباي أو محل رجل معجزة أو أسق دامن because وحال رتيج هرا رتيج الدنبا سانقات كيسولي because يعني قف كان محل رجل والد كاجا هدو والد توصن أو محل رجل مير أسعد straight forwardين هذيك يعني أمر الله ما أها لكن إنا والد كان سيدي نقطة على جهابا مد هذا كلا أنا أقول بالله إسرعنا مجرته وايو وحول بهرت الدنيا وعلى في شاء فهمتين دور الدب وحول بابا كفيلة because قف كان يعني إيه دور كاس علده أسكو بحيس اللي بيح وحول بابا أنا كره قف كبني آدم كهنا وحول بكفيلة ولقى قف بني آدم هسكو هلين مركا وحافي عن هبلو هذا جيب كيسا قوسن برجك وقلنا كرا وهو وين كرا ما فهمتي ما أها إن هذا هدعون جاي جور كيسة تناقو حرا لعاون حرا قفك دول لعك هاي سن هتا لا problem because ما أنت هدو هاي سن بريو هلا بري هدو هاي استنا بري مهلا ما فهمتين أدونكو حلاي جيت كل بزيس هوس واي ما فهمتين يعني الصلاة دي هوس دنعانو كصبحة قربتنا دنعانو كصبحة واي يعني أدونكا بساس جيت لبزيس هوس واي وحلاو ده يعني محل رجل أدونك مرور بدين عقلي ما تجناناي ما فهمتين هل نعبس ما تجناناي مركو حافي عن وقروح بدن مرور بابا إن محل رجل مدة تاجيني هاي
mid damba ilaahay hana gaarsi muslinaan nahni wuxuu ilaahay qoran lama waynaayo marka mid damba allahna gaarsi laakiin mid taagan in maxal dhigi jire waxa la meel waryaa kaaga baahanaa la yaa lama dhaha ama waryaa lama dhaha yani cunugaada marka uu maxal dhigi jire uu dantiis maxal dhigi jire guur rabooda ama wax u baahda waxa qurux badan in maxal dhigi jire aad garab istaagto ma aha in maxal dhigi jire saan ma aha income igama soo galay waalidiin qaar jira oo dhahay income igama soo galay saan waay inta no because cunugaad dhashay markii maxal dhigi jire farxadiisa hadad ka talisid adigana maxal dhigi jire farxad iska talisay dhinacaad ka qaybsanaysa because waa dhinaca cunugaada waaye aduu ka soo go'ay adiga dhashay maanta adiga farxdid waalidkaana wuu farxa laakiin hadda adiga maxal dhigi jire dhibeysantahay waalidkaana wuu dhibeysnaana taas waa qadcan lisama sheegay ma fahanteen intaas idin sheegi rabay mideeda kala please waalidku waxaan leeyahay dadka ha ku qasbina maxal dhigi jire lacag inaad qofka haysto ha ku qasbina because maxal dhigi jire hadda waa taas amal fiir gabadhaas tii ku dhacday waxa ku dhacay success guurlaan meel degidlaan inkastoo wax walba uu calafka ilaahay wuxuu ilaahay qorin maxal dhigi jire meel loo dhaaf fikir jirin ma fahanti waxa ilaahay ku qor horta maalintaad xab iyo biyo aheyd am xal dhigi jira meel lagu qoray ma fahanteen 4 months marka caloosh ku jirto 4 bilood ood kala bixin hada inaad wiil tahay inaad gabar tahay 10 lagu qoraa wax walba waxaad mareysid inaad guursanaysid inaad hal guursanaysid inaad laba guursanaysid inaad saddex guursanaysid inaad weliga guursanaynin inaad wax dhalaysid inaad dhalayn ilaahay yaa qaanan fahanteen ma dhihi kartid ani waa dhalaa waa iswaa waa dhalaa ma dhihi kartid ama ma dhalaay ma dhihi kartid because ilaahay wuxuu ku qoro oo maanta 10 ku qoro ba ku qoran anagana wuxuu ilaahay noo qoro kulay kama weynin wuxuu kugu dhaca kunsanay ka weyn Allah ma fahanteen marka wax walba dulqaad iyo sabr loo baahan yahay wixii tagina tagtada weliga xasuusanin because wixii ku dhaafo yani haday wax fiican hayeen iyo haday wax xun ahayeenba waxa la dhahaa maalin qurux badan oo isoo martay ahayd ama maalin xun oo isoo martay ahayd waxaanan ahayn weliga niidaada yani waxa gidani ma fahanteen tagtada xasuusteeda habadsanin because yani waxa sayid ana horta wallahi been ma sheegay dadkaas waa ku jiri jiray waa ku jira ilaa hadda laakiin waxa jecelahay inaan iska yareeyo iska gooyo waliba iska gooyo bataatanba ex ku dhuftay because life ka aan soo maray ama wax aan soo maray inaan xasuusnaado ma ii qurux badna iska dhaafay qofka kale hataa ma u qurux badna waay maanta waxaan ku dhahay cad hilib haduu ilaahay ku qoro inaa cuntid ilaahow meeshuu rabo yeela yaa ilaahay haduu ku qoro way kugu dhacaysaa marka intaas ay idin sheegi rabay son dhamay id mubarak sonku dhamaan rabaa waxaan maleynaa hadaanan been sheegayno waxa ka dhiman taariikh 24 la ida maleynaa I think so 24 la ida ma fahanteen maanta sonku waa 26 ya taariikh 20 la jooga 26 waaye ajirka sonka Allah na siiyo sonka ku la aqbal Allah naga dhiga insha Allah ma fahanteen asxaab sharafta leh waa idin jecelahay love you guys subscribe to Isara subscribe like comment share mideeda kala wixii qisaninka haayo maxal dhigi jiray wuu ila soo wadaagi karaa wax weyn ma aha qisada waa ila soo wadaagi karaa maxal dhigi jiray qisada hadda si qurux badan u dhahayna maxal dhigi jiray wiilka walaalkay waxa leeyahay waa mahadsantahay thank you so much anay maxal dhigi jiray igaga baxday maxal dhigi jiray ilma laha mise aragti iga baxday ma sha Allah marka wax walba wuxuu ilaahay qoro way qoran yihiin ina adina waxaan ku leeyahay gaclay waa mahadsan tahay so intaas ay idin sheegay waa la aadamir waa umaleena 6 something la joogaa maanta dhanaan soo naay faanteen soonka ajibkiisana Allah na siiyo asxaabta sharafta leh waa idin jecelahay koodaha subscribe tani Isara subscribe like comment share na dhaha ina share gareysaan watching time ka xogo ii dhiman watching time ka intaas gaarsiiya daawada faanteen asxaabay mideeda kala belt ina fruitina raba belt because waxaan arkay views kayga iyo maxal dhigi subscribe kayga ina isdhameen please waxaan idin leeyahay waa idin maxal dhigi belt furta ama gambaleelka saa u taqaaniin wada furta soo marka intaas isku ognahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bye bye love you guys